hooyadu ayadaa madrasa ah soo ma ha waa shaqadaadii ilmaha inaad af soomaaliga barto horta caruurtiin maxaa af soomaaliga u bari weydeen arrin baaban xusuustaye maxaad caruurtiina af soomaaliga ooga xarimteen war caruurtiina af soomaaliga baro oo ilaahay ka baqa oo caruurta soomaaligooda ku soo celiya oo caruurta af soomaaliga kula hadla oo caruurta soomaali ka dhiga oo caruurta soomaaligooda diinta loogu aqriyo oo qur-aanka loogu aqriyo waa muhiim qodobka reer Canada aad baan idinku caraysnaa runtii qalbigaygu arrintaa aad buu nabar u gaadhay yacni maxay tahay ilmo dhan oo soomaali ah oo aan soomaaligaba garanayn caruurtiina soomaaliga bara guryaha maxaad u joogtaan oo ilmaha u dhalasheen idinkaa ilmaha dhalay bar ilmahaga af soomaaliga qodobka waa qodob muhiima wey marka tarbiyadu halkaasi ka soo bilaabantaa marka ilmaha waa inaad tarbiyeyso waa run aabbuhu dee waa garab weyn waa wax muhiim ah inuu qudwo noqdo oo ilmihiisa ku daydo oo masaajidka u kaxeeyo oo qur-aanka uu baro oo madaarista geeyo oo meel walba uu la dadaalo waa aabbaha waajibkiisa laakiin hadduu ka gaabiyey su-aashaan ha i weydiinin waa waajib kuu yaalla adigu inaad ilmaha aad dhashay booskiisii aad ka soo baxdaa waa inaad ilmihii la fadhiisataa waa inaad ilmihii qur-aanka bartaa waa inaad akhlaaqda bartaa waa inaad siirada bartaa maaha ilmahaad caloosha u buuxinaysaan xal maaha ilmaha una caloosha loo buuxinaya sax maaha ilmaha waxa ugu badan waa in maskaxda laga dhisaa wareedha ilmaha u sheekeeya oo ilmaha la fadhiista oo ilmaha wakti siiya oo isku daya ilmaha inaad xataa gabadhaadu markay 13 14 iyo wiilkaa gaadhaan waa inaad oga sheekayso markii ugu horeyso oo jacayl kugu dhacay mar aabbahaas isku guursateen iyo siduu kuu jeclaaday iyo saad adigu u shukaansatay iyo siduu kuu shukaansaday waa inaad oga sheekaysaa waa inaad ilmihii wadada haddii kale saaxiib baa u sheekaynaya hadaad u sheekaynin ilmihii saaxiib baa u sheekaynaya marka ilmahaaga saaxiib la noqo ilmahaaga waa inuu sirta marka dambe kugu qarsadaa saadu wax walba aad ugu sheegayso oo aad daacad u tahay marka ilmahaaga bar adiguna hadee baro marka hore faaqidu shay laa yucti qofku wuxuusan haynin ma waxbuu bari karaa may soo ma idinkana barta oo madaarista taga oo qur-aanka barta oo onlineka wax laga barta xataa dad guri ka gaari weydo idinku noqda addoommo ilaahay tabaaraka wa tacaala oo ilaahay addoommo u ah dad ilaahay addoommo u ah oo ilaahay raali gelinaya war soomada arki meesha la isgelinaya yarideeda soomada arkin bal ku fikir qof walbow ma ogtahay caaw hadda inaan gurigii nabad ku gaari karno wax kastaa dhici kara soo maaha maxaan ilaahay u horumarsanaynaa tabaaraka wa tacaala maxaan ma dad la isku diro ma masayr maantona aad mashquulsan tahay war xishooda baabkaasi ka baxa war keligaabaa hor istaagi doona rabbiga adigoo qaawan waaladii nafsu muxamadin biyadi adigoo qaawan baad rabbi hor istaagi doontaa war qof walba waajibkaaga ilaali oo ninkaagu hadduuba xataa waajib ka soo bixi waayo adaa lagaa doonaya walmar'atu raaciyatun fii beyti zawjiha gabadha waa la weydiinayaa guriga waxay dayacdo caruurteedana ayaa ka mida wa ilaa ninku inuu dhintay ka soo qaad hab abaana ximaaran aw xajaran ulqiya fi lbaxri aw walasnaa biummin waaxidin cumar bn khataab markuu qeybiyey dhaxalki ninkii yidhi kama soo qaad aabbaha inuu dhagax yahay kama soo qaad aabbaha caruurta inuu dhintay ma waxaad dhihi ilmihii odayg waa dhintay maanaa la iga raba inaan korimaadihi kama soo qaad inuu dhintay inanay agoonka runta ma aha qofku aabbihii dhintay agoonka runta waxaa weeye waa qofka waa ilmahay dhaleen aabbiyo hooye mashquula maalidha waxaa la weydiinayey aabba dhahaya ila talida waxay weydiinayey aniga waxaa weeye tagsiilaan ahay xaaskuna dukaan bay gadaa ilmahaygu saas waan jeclay way jeclaayeen laakiin gabadhayda hadda markay weynaatay nin gaala ii keentay oo ay leedahay marka aan iska daano wuxuu yidhi waxay tihi raggaba waa loo ogolaaday inay gaalo guursan karaan aniga maxaa laygu diiday marka horaa la dayacay sooma hoosi baa laga daca ilmaha soo weynaaday baad arkaysaa marka aan guryaheenna guryo qur-aan ka dhigno oo guryaheenna suuratulbaqara ha ka daaraato oo guryaheenna aan salaadaha ku tukanno oo guryaheenna yaana qubuur ka dhigina oo guryaheenna aan ka dhigno guryo ilaahay laga sujuudo oo lagaga rukuuco tabaaraka wa tacaala markaan addoommo dhaba noqonno ilaahay baa awlaaddeena noo hagaajin marka dadaal gabadhaas muslimadda ilmahaaga si wanaagsan u tarbiye adigaa lagu weydiin hadduu odayga ka soo bixi waayo wallahu aclam